bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland miyuu ku abaal dhacay madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona warbixinteena ayaana kaga bogan doontaan xogo arrimahaasi la xiriira sidoo kale intaan warbixintan ku guda jirno waxaan soo qaadan doonaa adba wararkii nagu soo kordha hayeeshee intaan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faarada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena doorashada Soomaaliya ayaa si toos ah loo guda galay musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa si toos ah u bilaabay ololahooda xukun doonka ah maamulada qaar waxay u diyaarsan yihiin in ay boqolkiiba boqol kaarkooda saartaan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inta la ogyahay Puntland iyo Jubbaland ayaa ka maran gacanta madaxweyne Farmaajo mucaaradka xamar jooga waxay waqti dheer rajeynayeen in codadka labadaasi maamul ee Puntland iyo Jubbaland ay wax fiican ka heli karaan marka la gaaro xilliga doorashada balse waxaa meel dhexe uga soo baxay Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo aaminay in ay fursad madaxweyne ku jirto halkan musharaxnimada madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa rajada codadka musharaxiinta mucaaradka ka dhigtay sida Farmaajo oo laga xirtay codadkii Puntland waxaa soo haray Jubbaland Farmaajo wuxuu 16 kursi geystay magaalada Garbaharey dadku uu isagu rabo ayaa heli doona kuraastaasi ma u codeyn doonaan waa dood kale kuraastii Kismaayo ku artay ayay mucaaradka badi rajo ka qabeen laakiin dhawaan Axmed Madoobe oo Muqdisho uga qayb galay shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la kulmay xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuuna toos ugu sheegay in uu dhisayo Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe wuxuu sheegaa in uu Saciid Dani ku leeyahay abaal badan oo siyaasadeed Axmed oo dib u soo doorashadiisa muran badan la geliyay loona diiday aqoonsigii dowladda dhexe wuxuu si weyn ugu baahnaa ictiraaf siyaasi ah maadaama uu ciidan ahaan ku tiirsan yahay dowladda Kenya waxay ahayd 2 sano ka hor Axmed wuxuu aqoonsigii dul dhigay xafladii caleemasaarkiisa Saciid Dani wuxuu ahaa dhanka maamul goboleedyada maamulka qura ee tagay caleemasaarkaasi laakiin maamul goboleed miya aqoonsi siin kara maamul goboleed kale jawaabtu waa maya Axmed Madoobe wuxuu markaasi u baahnaa madax heer qaran ah labadii madaxweyne ee hore ee Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkii aqalka sare iyo dhammaan xubnihii mucaaradka ayaa u duubtay in Axmed Madoobe loo sharciyeeyo doorashadiisa qaarkood halis duulimaad ayay la kulmeen balse ugu dambeyn waa ku guuleysteen in Axmed uu u noolaado sidii madaxweyne sharci ah iyadoo dowladda federaalka ee markii dambe ku qasbanaatay in ay aqoonsato Axmed Madoobe madaxdii heer federaal ee u dagaalantay aqoonsiga Axmed Madoobe maanta waa laga soo xirtay albaabada Jubbaland Axmedna wuxuu leeyahay Saciid Dani oo kaliya ayaa abaal igu leh dood kama taagna in uu Dani siyaasad ahaan u garab istaagay Axmed Madoobe laakiin kaligiis waxba uma tari karin lama yaqaan waxay maanta dareemayaan xubnihii shalay naftooda halista u geliyay in ay Axmed Madoobe difaacaan si uu xilliga doorashada u garab siiyo balse maanta irdaha laga soo xirtay Axmed Madoobe sida muuqata Saciid Dani oo qura ayuu u abaalgudayaa maanta waana cashir siyaasi ah oo la diiwaan gelin doono waxa qura ee arintan laga baran karo waa sida siyaasiyiinta Muqdisho ka soo jeeda ay ugu liitaan akhrinta iyo iswaafajinta waxa taagan iyo timaadada dagaalada ay mabda' la'aanta u galaan iyo in ay rajooyinkoodii siyaasiga ah dul dhigeen xubno aysan balan xoogan kala dhaxay inkastoo aan la aqoon halka ay codka geyn doonaan xubnaha la soo siin doono kuraasta haddana waxay dad badan aaminsan yihiin in tallaabada Axmed Madoobe ay dhalin doonto in siyaasiyiinta Soomaalida ah ee cashir ahaan u haystaan inta aysan mar walba qaadin tallaabo laablakac
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble haddaynu eegno waxa uu mar kale hor istaagay damac uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble ayaa mar kale kooxda farmaajo kaga adkaaday loolanka hoggaanka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii uu dhowaan hor istaagay in shakhsi farmaajo ku daaban mar kale hoggaanka u qabto guddiga heer federaal ee FID. guddiga xalinta khilaafaadka doorashada heer federaal ayaa qaab gacan taag ah maanta ugu codeeyay inuu guddoomiyaha guddiga noqdo Maxamed Cawil Warsame kadib markii uu doorashada ka tanaasulay musharaxii xafiiska farmaajo gadaal ka riixayay 18 Diseembar 2021. ra-iisul wasaare Roble ayaa shaqada ka raacdeeyay 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ku milmeen siyaasadda isla markaana ay dhammaan shaqadii guddiga hoosgeeyeen farmaajo iyo Fahad Yaasiin. xubnahaasi waxaa ku jiray guddoomiyihii guddiga Cali Maxamuud Seeko oo hore u bedelay Allah u naxariistay Cabdullaahi Abyan Nuur oo ahaa guddoomiyaha guddiga kaasi oo 13 Agoosto 2021 ku geeriyooday caasimadda, taas oo sababtay in la sameeyo hoggaan cusub. doorashada guddoomiyaha cusub ee guddigan iyo midii guddiga hirgelinta ee lagu doortay Muuse Geele Yuusuf waxay muujiyeen in ra-iisul wasaare Roble dadaal xoogan ku bixiyay in hoggaanka guddiyadu ka madax banaanaadaan faragelin ka timaada xafiiska farmaajo. sida ay sheegayaan dadka siyaasadda u dhunduleela in FID iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ay ka hor wareegaan Maxamed Xasan Ciro iyo Cali Maxamuud Seeko waxay fursad neefina u tahay guud ahaan doorashada, gaar ahaan shakhsiyaadka qaba tabashooyinka. guddiga xalinta khilaafaadka ee 7 xubnood laga raacdeeyay waxay hore u aqoonsadeen doorashadii boobka ahayd ee 25 November 2021 eedeysane Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray agaasimaha ku-meel gaarka iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA loogu boobay kursiga hoob 67 kaas oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug.